soo dhawaad saaxiibayaal ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran oo war-saxaafadeed soo saaray goordhow ayaa waxay ku sheegeen in ay awood u leeyihiin in muddo 6 bil ah dagaal toos ah ay la galaan Israa'iil iyo Mareykanka iyagoo ku faanay in ay haystaan agab ku filan iyo ciidan military oo awood badan waxaana dhanka kale ay ku hanjabeen in weerar kasta oo kaga imaada Mareykanka iyo Israa'iil in ay ka bixin doonaan jawaab degdeg ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamka ee Iran ayaa sheegay in ay Iran awood u leedahay in ay muddo 6 bilood ah si joogto ah ula dagaalanto Mareykanka iyo Israa'iil iyadoo xiisada gobolka bariga dhexe ay sii kordhayso hadalkan ayaa yimid xilli dagaal culus uu ka socdo gobolka kaas oo bilowday dabayaaqadii bishii February ee sanadkan aynu ku guda jirno markii Mareykanka iyo Israa'iil ay duqeymo wada jir ah ka geysteen gudaha dalka Iran war-saxaafadeed ay soo saareen ilaalada kacaanka Iran ayaa lagu sheegay in ciidamada dalkaasi ay si buuxda ugu diyaar garoobeen dagaal muddo dheer socon kara isla markaana ay haystaan awood military iyo agab ku filan oo ay ku wiiqi karaan awoodda cadowgooda saraakiisha ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa waxay sheegeen in Iran ay diyaar u tahay inay iska difaacdo weerar kasta oo kaga imaada Israa'iil iyo Mareykanka iyagoo ku adkaystay in dagaalkaasi uu noqon karo mid aad u culus balse ay awood u leeyihiin inay sii wadaan ugu yaraan muddo 6 bilood ah dagaalka u dhaxeeya Iran Mareykanka iyo Israa'iil ayaa sii balaaranaya iyadoo duqeymo dhinaca cirka ah lagu beegsaday magaalooyin waaweyn oo Iran ku yaala sida Tehran, Isfahan iyo Qom weeraradan ayaa sababay khasaare ballaaran oo soo gaaray xarumo military iyo qaar ka mid ah kaabayaasha dalkaasi Iran ayaa dhankeeda ugu jawaabtay weeraradaasi iyadoo riday gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn oo ku beegsatay Israa'iil iyo saldhigyo Mareykanka uu ku leeyahay dalalka Khaliijka sida Qatar, Kuwait, Bahrain iyo Sacuudiga weeraradan ayaa sababay cabsi iyo in dagaalku isu bedelo mid gobolka oo dhan saameeya wararka qaar ayaa sheegaya in dagaalku uu ku fiday dalal kale oo gobolka ah iyadoo kooxaha Iran taageerto sida Hezbollah ee Lebanon ka dagaalanta ay sidoo kale bilaabeen weeraro ka dhan ah Israa'iil tani waxay sii kordhisay khatarta dagaal ballaaran oo bariga dhexe ka qarxa ilaalada kacaanka Iran waa mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan ee dalka Iran waxaana lagu qiyaasaa inay haystaan 10,000 oo askar iyo awood ballaaran oo gantaalo iyo droneska ah kooxdan militariga ah ayaa door weyn ku leh siyaasadda iyo amniga Iran waxayna sidoo kale taageero siiyaan kooxaha hubeysan oo ka dagaalama gobolka bariga dhexe saraakiisha Iran waxay marar badan ku hanjabeen inay si xooggan ugu jawaabi doonaan weerar kasta oo lagu qaado Iran iyagoo sheegay in saldhigyada Mareykanka ee gobolka ay yihiin bartilmaameedyo fudud haddii dagaal toos ah uu qarxo dagaalka sii xoogeysanaya ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka iyadoo Iran ay ku hanjabtay in ay xanimi doonto marinka muhiimka ah ee Hormuz oo ah marin ay maraan maraakiibta qaada shidaalka oo dunida inteeda kale loogu dhoofiyo haddii marinkan si dhab ah loo xiro khubaradu waxa ay ka digayaan in qiimaha shidaalka dunidu uu si weyn sare u kac ku imaan kara dalal badan oo caalamka ah ayaa ku baaqaya in xiisadda la dejiyo si looga hortago dagaal ballaaran oo khatar ku noqon kara ammaanka gobolka iyo dhaqaalaha adduunka si kastaba ha ahaatee hadallada kulkulul iyo dagaalka iyo duqeymaha tooska ah ee ka imaanaya dhinacyada dagaalamaya ayaa muujinaya in xaaladdu weli ay tahay mid aad u kacsan hadalkan ka soo baxay ilaalada kacaanka Iran ee sheegaya in 6 bilood la dagaalami karaan Mareykanka iyo Israa'iil wuxuu muujinayaa heerka sare ee xiisadda military ee hadda ka jirta bariga dhexe iyadoo duqeymo iyo weeraro isdaba joog ah ay ka socdaan khubaradu waxa ay ka digayaan in dagaalku sii fido haddii aan xal diblomaasiyadeed oo degdeg ah la helin